marka haddaan wax yar ku soo noqdo arrintii akhuuna Ismaaciil barakallahu fi waladna Ismaaciil waan dhageystay anigu musaabaqadiisa waan dhageystay maadaama aan lajaanad taxkiimka aan kamid ahaan jirayna waxaan ku qiyaasay aniga agtayda ay kamid ahayd inuu kow ama laba mid gali doono marnaba uu ka hooseynaya isma lahayn ana waan dhageystay musawiisaan ogaaday faj'atan waxaa meeshii soo baxay sheeko kale oo ah ninkii waaba la eriyay wadanka waa laga saaray jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Qatar ayaa soo dhaweyn ballaaran ugu samaysay masaajidka uu imaamka ka yahay Sheekh Cabdirashiid Cali Suufi Ismaaciil Cumar Madar oo ah wiil Soomaaliyeed oo dhawaan tartanka Quraanka uga qayb galay dalka Imaaraadka Carabta isla markaana la sheegay inay saameysay arrimaha siyaasadeed ee ka taagan dalalka Khaliijka taasi oo sabab u noqotay in dib loogu celiyo Soomaaliya wuxuuna intaasi kadib عزومت كهلي دولة قطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. عبد الله محمد علي معلنك إسماعيل مدر ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Qatar uga mahad celiyay sida wanaagsan ee ay u qaabileen. runtii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Qatar khaasatan magaaladan Dawxa runtii ikraam aanan ka arki jirin yani jaaliyadaha kale ayaan halkan kala kulannay runtii wadamo badan aan tagno Khaliijka yani kamid ah laakiin maanan arkin runtii Soomaalida joogto ikraamka iyo runtii aan kala kulana halkaan oo kale maanan arag jazaakumullahu khayran wa kaga mahad celinayna runtii waa wax aanan ilaabi doonin oo yani mar walba niyada aan ku hayn doono wa jazaakumullahu khayran runtii waxaan ilaaho kale ma garanayo. Sheekh Cabdirashiid Cali Suufi oo madasha ka hadlay ayaa Ismaaciil ku booriyay dadaalka uu sameeyay wuxuuna sheegay markii uu qiimeeyay inuu gali lahaa kaalmaha ugu horeeya balse nasiib darro taasi aysan dhicin wuxuuna tilmaamay inay wax laga xumaado tahay in la siyaasadeeyo quraanka Alle. xaqiiqatan aad baan ugu faraxsanahay walaalahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadankan Qatar ku nool زيارة أي نسوي زيارتين هل كأي نقول مادين مساجد كيجا الحمد لله هذا أنه رمضان كي كبحني أيام شوال بانو كجرة وأيام ولا بركيسن ولا خيرة بركات بانو تيجيكم هذين زيارة عند شوب بوقتين بارك الله فيكم. ثانيا وحان سيجارة وصول وينينا إخواننا ولا الذين صوب بغضي ودن كانوا قيمت أخونا الشيخ عبد الله هي تلميذ كيسار دقيسة إسماعيل وقصاد لوضة سعوتان هجرتي مع المدويت سبب استاذ تيدنا ودنك هالكن ويمد قدر ويمد waxay radaan tacliiq yar ka bixiyay arintaas xaqiiqatan markii ay soo gaadhay arina ka xumaanay bay noqotay sababtoo ah maxaafisha islaamiga iyo musaabaqaadka quraaniga in umuur siyaasiya la soo dhaxgaliyo ma aysan حقيقة يعني القرآن بقى اللي شو يمد أرضي بقى القرآن لو ويري مسابقة دبي كذا على ومسابقات ياد راقئة ومال سر كتاج المسابقات كعالمي كعالم كإسلامي
خير فربضنا قدمتي تشجيع يعني يرجلين واحد أرضنا عالم كمال كتمادة لله الحمد ورت إلهي بمهد له وحان سنة كسته أن ماشى كو أرجنا يملك له سابقات لو سمية سومالي كسو قيم كلي شترتن كاس أو ودمك للدوان كسعت لقي أبا شن لح مرمر طبعا بيجاري أنا كهرباء ميد ولا بيود الممثلة يا وانا سومالي مركز هذا وحي يركسون نقضه أرنتي أخونا إسماعيل بارك الله فيه ولدنا إسماعيل وان دقيستي أنا مسابقة وان دقيستي ما دام أن لجان التحكيم كان كم إذا هاي جرينا وحنكو قياس يعني أكثر إذا كم إذا هاي إنه كو أمر لبا متقري دونه نربو كو سين يا اسم الحين أنا وان دقيستي مستوي إنسان وقاذي فجأة وحا ماشي صوب حي شاكك له أو نكي وابا الإريو ذاك وابا الأسعار وحفلتي ولا مسؤول لا مسؤولين وما حد عاد إلا waxay ku qotontaa arinta siyaasadda maanta iyo xurgufta wadamadan walaalaha dhexdooda martay marka waa ka xumaanay arintii arin aad u farxan bay noqotay sababtoo ah يقولون ما حسوا دحقلي sheekadan dawladuhu haysteen siyaasadaha isku khilaafeen ha kala boodeen ha isdagaaleen meeshay rabaan iskala dhaceen laakiin arday quraanka u timid in arintaas lagu saleeyo oo la yiraahdo dawladii aad ka socotay maadaama qadar aynan calaaqada u goynin annagana ku ikraami mayno darajadii aad mutaysatayna ku siin mayno wadanka nooga bax arin aad u falxun bay noqotay marka horta arintaas wiilka kan uu ducaystayo Facebook ku soo leeyahay maqashiyay isagoo leh إن شاء الله وحكى خير بدن بإله كرجيني زوما وأخلف لي خيرا منها وحكى خير بدن هذا هو بهلايو يعني ولا جني شهرتني وسودوينتني ومضي أردنا خير كنت قانيو تاسي وحكى خير بدن بنقطي ثانيا يعني وحن أود عينينا السفارة الصومالية جزاهم الله خير هل كان جوكتا كارين توين أي كقاعتين أرنتها سنة دولة قدر أوجد بيان oo ayarka jabri u noqoto jabkii soo gaaray iyo dibkii soo gaaray una waxba ka galbanin inuu dambi ku lahayn in loo kabo على الأقل la ikraamo la soo dhaweeyay ragii ka shaqeeyay dawladda qadar u sheegay waan iyagan aad iyo aad ugu mahadinayna in sha Allah tabaaraka wa taala sidaas oo kale yani nashkur yani dawladda qadar baan aad iyo aad ugu mahadinayna talaabadan ay arintaas ay ka qaaday oo aan filayo inaynu wax kale ayna ahayn yani anagu masjid baan joognaa barnaamijkeena barnaamij quraan way hawl kale kuma jirno siyaasadna waxba naga gelin jooman garan laakiin waxaan jecel lahay in ay risaala gaadho dadkii saa yeelay in falka ay sameeyeen fal wanaagsan uu san ahayn quraankana arrimahaas oo kale laga nasaho oo laga dahiro oo aan la soo dhaxgelin in risaaladaas ay gaadho ayaanu jecelahay insha Allah hada kadibna inaan dib arinta loogu noqon marka tawfiiqda Allah na waafajiyo insha Allah barakallahu fiikum wa jazaakumullahu kull khayr gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Qatar Ali Askar ayaa isaguna sheegay inay soo dhaweynayaan Ismaaciil iyo macalinkiisa wuxuuna ka dhawaajiyay midnimada ka dhex jirta jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Qatar waxaan soo dhaweynayaa walaalkeen Ismaaciil mar labaad anigoo ku soo dhaweynaya magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee Dooxa Qatar waxaad dhex joogtaa dad midaysan oo walaalahaaya oo maxaan ku dhaday jaaliyad mid qura ah safaaradeedii oo isku xidhan ilaahay idankii guul weyn baad gaari doontaa guusha aad gaari doontana waxaan ku leenahay waa inaad maxaan ku dhaday ilaahay idankiis aad waxa culayska aad sido mas'uuliyadda waa inaad mid weyn qaadaa sidii ummadaada aad wax ugu kordhin lahayd oo ilaahay idankiina ilaahayna uu inagu wada guuleeyo hadalkayga waan dheereeyay intaasaan ku soo koobayaa waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaqahayna waafajiyo si kastaba ha noqotee
ismaaciil ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa si weyn uga faallootay warbaahinta Soomaalida iyo weliba kuwa caalamka kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in laga saaray tartankii Quraanka xilli aan la shaacin natiijadii. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixin kooban oo aan uga hadlaynay soo dhaweynta jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Qatar ay u sameeyeen Ismaaciil Cumar Madar. waxaana idin soo jeedinayay anigoo Axmed Darwiisha. tan iyo kulantii dambe nabadiino.